بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، marka hore ilaah baan ku shukriyeynaa subxaanahu wa tacaala. allaha noo ogolaaday inaannu ku kulanno guri ka mida guryihiisa. uma intaa kadib waxaan u mahadcelinayaa munadamatu lixsaan, walaalaha reer nairobi dhammaantood, rag iyo dumarba, carruur iyo ciroolaba, intii sababtay inaan maanta aan wada kulanno biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. inaad wax badan fadhideen waan rajaynayaa, laakiin kelimaadkaygu waxay noqon doonaan kelimaad kooban biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. kelimada koobaad waxaan leeyahay oo aan ka bilaabayaa muqaddime iyo hordhacna ay ii tahay: xaddid hadafaka min azawaaj. marka aad guursanayso waxaad marka hore si wanaagsan u ogaataa sababka aad u guursanayso. tusaale, dadka qaar baa waxay u guursadaan mutca iyo shahwo inay jidhkooda ay siiyaan. qaar baa sidaa guurka u guursada. qaar ka mida inay carruur badan dhalaan oo ay ku faanaan. qaar baa ayagana u guursada. qaar waxaa jira u guursada aad maamul noqotid oo aad wax maamushid ood hoggaan noqotid, oo laga yaaba inuu hoggaankaasi xun u isticmaalayo. qaar baa waxay u guursadaan inay naftooda cifo iyo dhowrsoonaan ay naftooda ay kaga helaan ayay markaa u guursadaan, iyo inay umamka muslimiinta ay badiyaan. qaar baa waxay u guursadaan, waa la guursadaaye guurso gabadhii kaa horraysay, deriskaaga ahayd, wiilkii kaa weynaa ama deriskaagii iyo saaxiibka ahaana wuu guursadayee guurso. sidaa daraaddeed ayaa waxaa aad u yar dad u guursada inuu gaadho risaalo iyo mas'uuliyad. guurku waa risaalo, guurku waa mas'uuliyad. waa mas'uuliyad weliba weyn, mas'uuliyatun cudmaa wa tacaawun mustamir ayaa la yidhaahdaa. saa daraaddeed qaacidada koobaad waxay leedahay: اتفقا على كل شيء قبل الزواج. qaacidaan u qaadan doonnaa. qodobka koobaad oo inaad qorataan aan doonayo waxaa weeye, markaan doonayno inaan reer dhisno intaynan guursanin waa inaannu isku waafaqano wax walba. waxaa laga yaabaa inaad i weyddiisood i dhahdo, anugu wakhtigii waa i dhaafay. waxaan ku leeyahay kuma dhaafin. caawa markaad gurigaaga ku laabato ayaad odaygaaga dhihi kartaa, gurigaba waa la cusboonaysiiyaaye, daahaba waa la beddelaaye, aan hadda nolosheenni wax ka beddelno. qodob baan kaga hadli doonaa. qodobkeenna koowaad marka muxuu yahay? ku heshiiya shay walba intay isguursanin oo iswaraysta. maxaad jeceshahay ka wada hadla, maxaad necab tahayna ka wada hadla. taasi waa qaacido aad iyo aad muhiim u ah. qaacidada labaad oo muhiimka ah, gurigiinna waxaa aasaas u noqon kara iimaan oo keli ah. aasaaska koobaad waa iimaan. aliimaanu ruuxu sacaada. iimaanku waa sacaadada ruuxdeeda weeye. haddaan doonayno marka inaannu helno
qoys wanaagsan waa inuu waxa lagu dhisaa waa inuu noqdo iimaan waa inuu noqdaa qodobkaasna waa qodobka labaad oo muhiimka ah markii aanu wax walba ka heshiinay oon saa isku guursannay gurigeenna waxa lagu dhisaayey waa inuu noqdo iimaan maxaa yeelay doorashadeenni baa iimaan ahayd tunkaxu lmar'atu liarbac walidiiniha diin baa la isku doortay idaa jaa'akum man tardawna diinahu diin baa la isku doortay markuu meherku dhacayay yaa ayuha annaasu ittaquu rabbakum aladii khalaqakum min nafsin waaxida wakhalaqa minha zawjaha wabatha minhuma rijaalan kaiiran wanisaa'a wattaquu allah aladii tasaa'aluuna bihi waalarxaam waa taqwa yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allah وقولوا قولا سديدا وسورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وسورة آل عمران صدح ذا آيات بالسنة أيال أقريا قرقم تقوى لغو ديسي إيمان بالغو ديسي إذن وحان لنا هاي الإيمان روح السعادة وإن قرقنا إيمان عن كل سنة قرقنا وإن قرآن لغو أقريا وإن قرآن كان لغا أقريا واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا وقريه مؤمناتك أي الله تلماما يا هوانك نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هري وكاللويري ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وتربية إلهية أقريهن إن لقى أركا لدون أيوه إذا انقضب كان الله بعد محوية هي السعادة مركا ربنه قريهن إن أنكو حصل له قريهن إن أنكو دقنه وإن قريهن الصلاة الليل لقيته كذا قريهن وإن قرآن كان لغا أقريا قريهن وإن لغا فوقيو وحيابها آلاتك حنحو وإن لغا فوقيا سادرادت الإيمان روح الحياة روح السعادة قاعدة أن الصدحات أقري ونكسنو لسكرته وفهم الحقوق والواجبات حقوق ذا واجبات كلا اسكولي هي او سيداي تahay loo fahmo ayaa la yiraahdaa hal su'aal hada aanu isweydiino oo kali ah xaq adigu aad leedahay iyo xaq adiga lagu leeyahay koodee xoog badan xaq adigu aad leedahay iyo xaq lagu leeyahay kee xoog badan mar walba waxa xoog badan xaq adin lagu leeyahay sababka idin sheegaya horena waanu sheegnay lianna xaq adigu aad leedahay saddex mid weey qodobka ila qabta waa qodob muhiim ah xaq adigu aad leedahay saddex mid weey in lagu siiyo waa macquul waa koow in lagu cafiyana waa macquul in lagu siiyo waa macquul baan u jeedaa in aad u cafidana waa macquul xaq adaale xaq adaale saddex mid weey in lagu siiyo waa macquul qofka xaq ku lahayd inay ku cafidana waa macquul labada hadaad adduunyada ku weydo ayaday aakhira kaaga horeyso oo ilaahay aad hortiisa aad ku doodi baad u tagi khasaare miyad qabtaa khasaare ma qabtid saddexda mid weey imma in lagu siiyo imma inaad adigu cafido imma inaad aakhira ugu tagto laakiin xaq adigu xaq adin lagu leeyahay waa xaq marna aan laga cafin karin oo khatarsan weey waxaan leenahay marka qaacida qabsa addi ma alayki wa addi ma alayka waxa lagu leeyahay adigu gudo waxa la rabaa inay marka amali aan ka dhigno muhaadaradeena bal amali hada aan ka dhigno tusaale aan ka bixino si aan amali ahaan u fahamno ninkaagi baad wax ku dhibsatay xuquuqdaadii buu ku sii waayay maxaad samaynaysaa marka
ma waxaad ku mashquuli tusaale ahaan waxayga maxaa la ii siin waayey maya adigu wuxuu kugu leeyahay samee markuu arko ninku adoo samaynaya waxaad ku lahayd xaqiiqa insaanku waa cajiib wuu xishoonayaa insaanka xishood baa ku abuuran ogaada warkaa ninkaaga oo aad u cadhaysantoo saaka kaa cadhaysiiyey ayuu baxay cafan asagoo kuu cadhaysan oo adigu uu kaa cadhaysiiyey ayuu baxay maxaa samaynay ka warran hadduu kuu soo noqdo adigoo qurux badan adigoo caraf badan adigoo cunto macaan u diyaariyey adigoo dhoolla caddaynayoo qoslaya oo maxaa dhacay idfac billatii hiya axsan faida aladii baynaka wa baynahu cadaawa kaannahu waliyun xamiim aayaddaasaa ku hagaysa waayo waxaan idhi guryaheenna iimaan baa loo rabaa iimaankaa ku hagaya qur'aankaa ku hagaya sunnada nabigaa ku hagaysa sala allahu calayh wasalam markaasaa waxaa tidhi maanta aayaddaasaan ku dhaqmayaa idfac billatii hiya axsan maya wanaaggaan raacayaa siduu u lahaa xaaskii oo cadhaysan baad u tegi ayaad albaabka ka furtay may albaabka intuusan soo gaadhin guriga albaabka kore laga soo galo inaan gabadha gaariyadda ah hal bay kaga duwan tahay gabadha aan gaariyadda ahayn gabadha gaariyadda ah gurigeeda waxay ku shiday waxaa laga carfiyaa albaabka kore laga soo carfiyaa haddaba albaabka kore ayaa laga soo carfiyaa markuu albaabka kore soo gelayo ayuuba marka horeba su'aal isweydiin waniyow maxaa jira gabadhii ayadoo cadhaysan baad ka tagtae talo maanta maxay samaysay gurigani maanta oma eka guri laga cadhaysan yahay asagu isa soo qanciyey ayaad albaabka ka furi adigoo noocee ah adigoo u eg habeenkii lagu aqalgaynayey adigoo u eg ninkii waa yaabayaa cadhadii uu kaa cadhaysiiyena wuu ogaa habbaa siisay waa soo dhowaysay oo dhabannadaad ka dhunkatay waad qaaday gurigii baad geysay shukumaan baad musqusha u geysay kabihii uu musqusha ku gey lahaa ayaad xagga u jeedisay wuu sii gashaday ninka noocaas ah waa dhaqangelin baa la dhahaa su'aal baan marka hore inaan weyddiiye yaa diyaar u ah waa tuma gabadha cadhadaas intay xagga dhigto sida aan sheegnay ayada oo ka duulaysa qur'aanka iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo walaa tansawu lfadla baynakum iyo wanaag la isla soo maray iyo inay noloshu sii socoto iyo inay nafteeda ka adkaato oy nafteeda xakamayso waxaan rabaa gabadha inay gacanta taagta ayada basaan rabaa maya kulligiin maaha gabadha arrintaas samaynaysa waa gabadhee waa kulligiin diyaa tamaam bal aan aragna marka arrintaas horta waa farriinta koobaad oon rabaa inuu dhaqanka sidaa noogu dhaqan galo waxbaan maqallay ma soconayso laakiin camal baan rabnaa inaan camal samaynaan rabnaa ninkii yaana ka tegin saaxiibkayba hadday ag fadhiya nimanka asagaa madax ka ah haddii xaaskaagii oo kaa cadhaysiisay oo cunaha aad ku kala go'an tahay oo aad leedahay tan yaa istaaggaba ku cuna ya haddaad albaabka ka baxdo oo adigoo naqsan hayo oo cadhaysan oo afka abuurka kicinayo xididadu ku kacaynoo awdajeenko dhagax weyn laguu fadhiisiiyey oo haddaad iridda ka baxdo kadibna ayadaa kaa cadhaysiisay ogow hadda ayadaa kaa cadhaysiisay kadibna ay isleedahay talow odagaagii sidee buu maanta yahay kadibna aad dhahdo war ma gabadhii wallaca soo martay war ma gabadhii xaamilada soo martay war ma gabadhii umushay ee umasheeda aan dul taagnaa war ma gabadhii intaa gogosha kuu qurxinaysay weligaa islaantaada haddaad u gogosho sariirta horta dhabar xanuun badan bay leedahay idinka rag haddaad tihiin waxaad u malaynaysaan gogol iska goglan baa iskaga seexataan wallaahi haddaad ogaan lahaydeen gabdhaha markay sariirta goglayaan
dhabar xanuunka ay kala kulmaan caqligaada maaha aniga hal maalin baa waxaan damcay xaaskaa waxay aaday Dubai caruurtii waxaan ku yidhi waryaada hooyo markay soo dhaweynayso aanu maqnahay guriga waxaan u imaadaa hadee nidaam ah oo cajaa'iba iyo sariir cajiiba iyo dhulka wixii la kala bedelay iyo ubixi ma taqarta gabadh baa ubaxay soo siisay gabadh yar baa soo siisay markaan meesha aan marayay qoladii saahay waxaan waryaada ciyaalka waxaan ku yidhi intii la joogtay waxaan rabaa hooyo siday sameyn jirtay si ka fiican inaan guriga u sameeyno walaada waanu sameynay islaamada dariska ah yiri sheekhow anaga iimaanayno guriga sameeyno xaraam bay ka taaqoori guriga anaga sameeynayno laakiin waligay ma iloobin guriga shaqada gashay musqushi dhaq muraayadaha tirtir daahi bedel Soomaali garan daahi bedel sariirtii gogol ubax soo dhig armaajadii meeshii taalay gediyo meel kale ka soo jeedi war ilaa shaqadu waa shaqo adag sariirta bedel ma sariirta bana bedelin ha sariirta bedel oo sida haday saa u jeedi markaad banaanka u baxday gabadhii oo islaamaanta odaygii waad ka calaysiisay war arbuuba dalqad soo tuura ka waran hadii aad u timaado adigoo ubax u wada iyo adigoo intaad warqad jeeg u wada jeeg bad u wada jeeg lacag maaha mar alla markii ay aad u timid ayadoo le odaygu waa cariisan yahay ayaad albaabkana ka furtaa soo dhaweysay kadib aad jeega u dhiibtay jeega maxaa ku jira maranaysan jeegu wuxuu yahay habeen iyo maalin hotel 5 star inay seexanayso خلاص waa dhamaatay intaas weey horta nolosha la idin sheegaya waa inta ragana kama qari aanu sheegaa haddana bambaasaan ka imado waanu soo sheegay waxaan idhi reerka wanaagsani qodob baan kaga hadli doonaa yana ka dibdhicino tajaddudul hayaa nolosha in la cusboonaysiiyo ayaa la yiraahdaa xuquuqda marka waa qodobkeena saddexaad maxaanu nidhi qaacidadan qaadanay waa maxay xoog waxba ha saarin anigu maxaan leeyahay waxaad xooga saartaa maxaa laygu leeyahay gabadhii waxay bixisay wixii lagu lahaa ninkina wuxuu bixiyay wixii lagu lahaa meeshiba inta la rabay ee sharciga looga dan lahaa intaas ay ahayd qodobkeena afraad waa qodob aad u culus aad u fudud dadku ilaahay waafajiyo aad ugu fudud laakiin aad u culus lacag kuma fadhiyo sida korontada lacag lagama bixiyo ma taqaanaan kan arab al-kalimatu tayyiba reeraheenu maanta waxay u baahayeen waa inta ninkaaga ma dhihi kari laday habiibi ma dhihi kari ninku xaaskiisa ma dhihi laayay habiibati ma dhihi laayay ma dhihi laday ninkaaga kelimad midda ugu macaan kelimada qalbigiisa markaad ku dhahdo qalbigiisu isbedelayo in badanna waan ba sheegay waxaan nidhi gabdho badan baan u muxaadaranay hadda ka hor waxaan ku yidhi adeer aduu magaca cawrala aduu magaca faadumo yaa kuu bixiyey aabbahay iyo hooyaday soo ma maxay ninkaagu muxuu kugu yeedhaa faadumo ninkaaga magacii xuseen yaa u bixiyey hooyadii iyo aabihii oo adigu ninkaaga magaceed oo la baxday ninkaaga waa inaad magac oo la baxdaa soo saas maaha magac uu jecel yahay ninkaaga u samee oo isla taqaanaan idinka labadiina isla taqaanaan ninkuna waa inuu magac nabigeenu wuxuu dhihi jiray yaa caaish hatta tasghiru caaisha si uu qalbigeeda u farax geliyo waxaan u malaynayaa markaanu guryaha ku noqonno intaas sii socoto inta inaad ka fikiri doonto talo odagaaga magacee ku habboon ya macaddow baad dhihi kartaa ma macaanow baad dhihi doontaa marakar gabdhaha waa artay 5 karoon bay la baxaan marka ninkaaga 10 karoon u bixi marka
طبعا كرون ميادو بحين دونتا وإن المقع بحسنين كاغا قلب كاسوا مفتاح الكلمة الطيبة كلمة وناكسن أفحمضة قريها لك إلاليو قريهنا أفحمضة عنك إلالينو أفحمضة عنك إلالينو كلمة طيب كأه رقنا واسدو كلا طبعا ميت كلا جرا فركله الابتسامة نول عدين وقصل فرحة أي لصعته أو نول عدينا أو أن نقنا أهين لكن أنا عرفت شيرين قبلها قيب كميدا الله نوض هنونية إلهي أمركي وحاويان وحد دائما بعريسيهم به رجنا واسدوا كله ولذلك بقوليه دمر كي يقاني مركي دحجلان وحيدهن دمر كقيب أفتاق لي هذا ما كميدا أفتاق أيضا حالي نبض كسي حتى بيسوتوس أيضا عريسا وحكي عريسي اللي بيقان اسكود إلى الفرح صناته ولي بعرورت هذا إيا نينكا نحضوضا فرح صنو رجنا واسدوا كله مع الأسف رقبة وحال غيابا نين إنو حاسكيسا مركو بناكا تشوغو وفرح سيهي مركو رجل لا تشوغو وفرح سيهي قريسا مركو صوغل با وحال مودا إلا يد عريسنو واسيدا إسلامتو تريو كله زوجي معاي تري نينكا يقو بيتري يا وحي تري زوجك يقو بيتري محالي هذا مركب ودقال قالنا waxay tiri waa fulay waa sida goroyado kale aniga markuu iimaadana waa libaax bit ragana qaar baa noocaas ah dumarkana qaar baa noocaas ah maxaa kugu kaalmayn kara inaad faraxsanaato muraayada waxaan kuula talin lahaa gabar walba muraayada gurigaaga taala bal hal mar muusow bal saad waqti fiiri wala qurux bal saasni muraayada waxay ku sheegi saxda iyo khaladka sida daraadeed waa la isbaraa muraayada ku sheegaysa isbar culamaa tarbiya markada culamaa nafs markay ka hadlayaan waxay dhahaan muraayadu wax badan bay tarbiyaysaa markaad muusoonayso bal quruxdaada fiiri isbar adoo muusoo arkaysa hal arin oo kale aan idinku biiriyo maga yeelaysaan hadda run sheega ma sax baa hadda arka hadda qodobkan kaliya ma aha saddex wiig baa nolosha loo qaybiyaa saddex wiig ayaa nolosha loo qaybiyaa sideedaba caruurtaada iyo odaygaaga iyo adiga waxaa la isku waafaqaa saddexdan asbuuc ee soo socda waxaanu ku dadaalaynaa qof walbow markuu qofka kale ka soo horbaxo muusood هذا قفل بقى المير باك زور بحي كلا زور بحي كلا حاجات وصدق أسبوعية أضيجي المير وإسك زور بحي كأغير الصوح ما فهم إيه مركو أركضات كورونا ولا ساسلة ساموديها سجنا والله إسبرا صدق لو يجي كحيل وحالنا وأنكو تشعله ساسا نوش غيرس صدق لو يجي صوص عضا قفك مركز ومسخوش كسبه وأنكو تشعله مركز كسر بحضان وأنكو تشعله مركو حاجة وأنكو تشعله وكا صدق ويبقى نورش الله قيبية صما قرن مر والبوحسو ألف عروت مركي أركان أبيه ولا هو يدي كله وأنكو تشعله هو يدي ولا وأنكو تشعله علمي يركا وأنكو تشعله أب وأنكو تشعله هو وأنكو تشعله وأيدي تشعله واسمه تشعله قريق بشعيل مركز قريق تشعيل بنغرية أيضا هو صدق ويب نفتها برانيسا نفتها برانيسا مركز دنبنا موحكا الأيدو اللي فيساه ابتسامه أيضا هو خطوة وتلابو نسينيسا قريهن إن سعادة كنا لنا نبينا نبري صلى الله عليه وسلم قصة ير إلى نجيستا هواني أي من كذي بعد انتي عدنا مركي كب حذي أفر بلادي يتوبن هبين مركي أولا ماتي هي حاجة أي شوكتي أيا وحال لقويري ما تقول ستت بقى لقويري
الداعي وحيتري حاجة كده يسنجي أستاذ عائشة وحيتري دا كستود قاعد هيسليبني قرص الرقبة أيقو كنت تشري قرص سما قضبك وانش على يستي وأنا أتكينا يا قضبك وعاويا أستاذ عائشة رمبي شيكتي وأنا كعليا أنا محاضرات كي وحاكمة محاضرين هذا أفرتنشر راليا والرب جيدا تقانا والراحة أدون كي رجوا يلا موجاني مركز إسلامان حوا السوق والسبيني سماها سلانتي ويناتي سلانتي ويناتي سلانتي اللي حرورة إلى شيء تدواته قبل أيضا ير أي سومالي اسكت عادي أنا يعني قبل ويناتي مركز وحار ربينا عنده قبل ميدان وينانين إسلام تدواته شرته أي السؤال ويديو ليلي هوانكو قرمي جورك كقوستان جواب في عم بحساب وحيتري كوا يجوا وين هلا ويديو مركو عادي حاسودي بمركادو أنا يعني الديار من وليها هاي كوا يجوا وين ويديا إذن كنا سبب تقيبات كل هذين سبب تقيبات كل هذين مركي عرض يرو وين هذا ما تقرب بس أنت تقاطع وريك باللابي أو ضيق الضيعي ساس ما مركاسو دي أسجنا ملك الرأسنا يعني قبل القصة دي بندين وذي وحيتري ما وحد ليس زوج كي إنه دنتي ولي وحن إنده كو أركا أو ولي إلى النور موسود كيسي يدل عدين تيسي ولي أركابت ما قد أيضا لقد دنتي يولي موسود كسعون إياه قضبك كلا أفرها والحب والمودة لبدا قضب شعيلكم إيا موددوا وحويا ولما قضب سورة الروم آياتكم يا لباتنا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة مودة يا رحمة لبداس وإن قريه اللغهلو أو موددنا وحيت الماميسة قف كان وقف كان أو إلاليه وحيدها المودة والرحمة رحمته تمام مودة يا الرحمة وقتي ورقد بالسوس تجي مركب سؤالنا إن شاء الله قرينا وحكم المودة يا الرحمة تفصيل عجيب بكليهن مودة يا الرحمة على كل حال وحاب مفتاح نصين كرا بمعنى قرينا وإنه تشعيل كم وقضه قرينا وإنه الرحمة أي كم وقته مركب دبعت نعضه إلا سنة حريسته ليس شعلاضه ليس سودويه وحكم ذا فرياشة إيو خطوات مهمة التسامح ولا ليالو هل أرين هدان عاوة إذين شيغو ما يسكود يسالين عن دقن جرينو أرتا وحن شيغينا قبل دقن جريسة وندو عيننا إلهي نوزياديو وحسميننا جمعة والبا أما أسبوع والبا بل والبا أسبوع جمعة ومدن بيس إن شاء الله نسمع قرآن ما حديث ما سنين بين غرتا 30 أو 40 غرتا لكن أنا بس قياسي بل والباق جمعة ومدن بيسة عرور تاذي كل انت سو كل مسو يا حاجة وعلى صدر مع الموضوع عمرنا أباتجي وحكا سانا صور أحمر كرا هو يدا وحلقة شيئا كرا أبها وحلقة شيئا كرا عرورتا وحلقة شيئا كرا عرورتا والدك وحكا شيئا كرا وحاربنا إنه إسعفينه وإله بايري إسعافية عاو هدان منه سيان انت نرى إسرسعنا لو يرادوا ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون وسيدة الدنيا دا أنا سوتش الله إننا آخر الجنة وقال مركاسا واللي إسعافين ورقد بالله صحيحي إلا إسعافيي جمعة الله قبل الله أبو بيشن سوسعتا ورير هرله وأضي إسلام هرله وأبي عرور هرله وعرور يا أبا هرله هل كاسر نولش مركا لقى بالله بيا قدم كان مبيعي تسامح يا دياروا عاو مركا يقولك كل نقطة قبل ده يسأضي هذا عاو لقى بالله أنت نسخبني أردن عاو أنا إلهي درتي ما كوعف بس عاو هدان أنت آخر وحلو ما يسو عر قبل ده قاعد تاجسه عر لبضوا قعمود بقبر باتات لكن أنت بدل ما تهاجم فيريا
يعني waa dhaarsantiin sama odayaasha u dhaarsantiin soo saas ma aha waayahay qodob kale oo cajiib qabsada adeerayaal qodob kale oo la yaab leh oo cajiib la qabsada qodobka waxaa la yiraahdaa tanaasul in la isu tanaasulo xaq aad lahayd inaad xaq dhigto adigu iifaar inaad naftaada ka doorto waxaad adigu arkayso intaad xaq dhigto inaad walaalka u tanaasusho waxaa kale oo asagana jira almarax kafta wax la yiraahdo wal mazax guryaheena yaana ka dhigin qubuur yaana ka dhigin wa in guriga lagu dhax kaftami karo mar waa in odayga la iska qabsado kaftan banaan oo waxba dhaawacaynin mar waa in xaajiyada lala kaftamo mar waa in caruurta lala kaftamo nabigu waa la kaftami jiray xaasaskiisa sallallahu alayhi wa sallam waxaan soo ogaanay aabba iyo hooyo isqalaba reer oo isqabta oo wada hadlinba malaha caruurun bay dhalaan say ku dhalaan Allahu a'lam wal ilmu inda Allah sheeka kama dhaxayso farxad badan kama dhaxayso waxaad moodaa inuu guriga geeri iyo meyd dhex yaalo maya seel lagu abuuri karaa inaad ninkaaga iyo adiga aad wada sheekaysataan markaad rabto inaad ninkaaga la sheekayso oo ninkaaga aad oo ma sheekeeyo raggu aad oo ma sheekeeyaan gabdhaha sheekada badan inta badan waxa dib loo xiso hal hebelow hal su'aal baan waa iloobe hal su'aal hadda adiga u dhaanto ixsuus maalintii ugu horeysay oo is aragnay xageer barta isku aragnay awwal yawm waxaan u malaynaa markaan saas leeyahay dad maskaxdooda ka shaqaysiinaya anigi iyo adiga maalintii u horeysay oo is aragnay xageen isku aragnay odaygi markuu ka shaqaysiinaya ha wallahi halkaas ku aragnay ma halkaas bay sheekada halkaas ka bilaabay laba su'aasha labaad waa maxay horta waanba ka shakisnahay hebelow aniga iyo adiga horta maada jeclaaday mise anaa ku jeclaaday kolba gabadhu waxay dhihi a'uudu bil adaa jeclaaday inay gabdhuhu ma ogolo in la dhaho anaa ku jeclaaday dagaal bay ka xigaan hatta hadda iyadu jeclaatay dagaal bay ka xigtay inuu anaa ku jeclaaday marka taa ragga la iskaga daayaa waxa ilaa horta ma anaa ku jeclaaday hadii qof la jeclaado waa tahay hadda markaas sax sama haddaan ku jeclaaday qof la jeclaaday ma ogtahay faaduma ma ogtahay ilaahi amarkii maalintii aan ku bartay een isguursanay iyo maanta inaan maanta ku jeclaa horta ma ogtahay maanta ku jeclahay kitaab quraan soo qaado ku dhaaran karaa soo qaad ha maxaa dhacay ma taqaanaa iweydii hadda sheekadii baan wada la socyaa hadda aniga ay gaawashay sababta ma garan maalintii ma ana aqoonin waxaad gasho waxaad guddo nadaafadaada ee cuntadaada qaraabada ilmahaaga ma baan aqoonin maanta waxaan bartay yaani wax walbaan ka bartay maanta kuma quuri karo waxaan ku sheegi maanta ilaahi baan ugu shukrinayaa ilaahiga maalinta ikaatusay gabadhaasi ninka ma iloobi kartaa ma iloobayso sheekada halkaas looga bilaabaa sheekooyinku way badan yihiin haddaad rabto inaad ninkaaga sheeko bartana muraayadii baad hor istaagi muraayada u sheeke adoo sheekadii muraayada isoo fahmay oo meeshaad qosolka gelin lahayd iyo meesha aad xoogaa hadalka adkayn lahayd adigoo bartay markaa imo insha Allah tabaaraka wa taala waxa kamida madaxa amaanta kamida waxa kamida ixtiraamka labada qof inay is ixtiraamaan waxa kamida sidoo kale an-nadaafatu wal anaaqa guryaheenu waxa weeyaan nadaafadu waa cajiib yani waxa weey ustaad Aisha idin kala hadlayso waan maqlayay laakiin si hoos waliba in looga sii hadlo mawduuca nadaafada gabdhaheena Soomaalidana waa lagu amaanaa oo aad bay u yaqaanaan nolosha in la cusboonaysiiyo ragana waa sidoo kale inay nolosha cusboonaysiiyaan ayagiba aabayaala reerka banaanka mar la geeyo beeraha la geeyo hoteelada la geeyo haday awoodu ay dhan tahay maxaa la yiraahdaa in qaraabada la soo salaamo gurigii la nool hadalka la bedelaa oo guriga la bedelaa oo gogosha la bedelaa oo cuntada la bedelaa oo aragtida bas xataa waa la bedelaa aragtida xataa waa la bedelaa haddaad ninkaaga saa u fiiriso maalin si aad u fiirin jirin haddaad u fiiriso oo yiraahdo maanta aad baad ii fiirinaysaa waxa weeyaan waxaan kala garan lahayd adiga iyo dayaxa kiinee cad adiga dayaxa kiinee qurux badan taasaan kala garan lahayd waa inta wax meesh ku jira
nolosha laydii sheegayo waa sir wey sir nolosha laydii sheegayo waa sir wey marka qodobadaasi waa qodobo fara badan waxaan ku soo gabagabaynayaa qodob runtii aad u culus oo la yidhaahdo alxiwaar bini aadan baa tihiin waxbaa idinka dhexdhacaya wada hadla isqanciya wada fadhiista carruur baa idinka dhexaysa ood isku khilaafaysaan xoolaa idinka dhexeyo isku khilaafaysaan qaraabaa idinku dhexeyo isku khilaafaysaan cibaadadii buu qof iimaankiisa hoos u dhici karaa wada hadla maxaa noo diidan inaan wada hadalno meel cidla'a ku wada hadalno meel fiican ku wada hadalno i dhegayso waan ku dhegaysan i maqal waan ku maqli hadalka kiisa fiican ii door waan kuu doorayaa taas weeye midda la doonayo aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin qaabka qiimaha badan eed u dhegaysateen adduunyada ma soo marin gabadh ninkeedu wiilkeedu uu meyd yahay oo aroos gashay gabdhaha muslimaadka baa laga helay ummu sulaym رضي الله تعالى عنها وأرضاها أقرئ قبله السلف الصالح سيرضودي واتكفى إلي سنيسان اللهم إنا نسألك العفو والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته